waa galabnimo isniin oo taariikhdu tahay 26 November qodobada ugu door corona aan idiin hayo waxa kamid ah Ruushka oo weeraray Ukraine kalena wareegay 3 markabo dagaal midowga Yurub oo isku raacay kala tagga Ingiriiska iyo midowgaas Mareykanka oo xiray xuduudda oo la wadaago Mexico Sacuudiga oo ganafka ku dhuftay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA iyo madaxweynaha Jaad oo boqosho ku tagay Israel warkan waxaad kala socotaan bogga aan ku leeyahay YouTube waxaana idiin soo jeedinaya anigu ah Shiina Culay oo idin leh nacala sheedaan ku yaala sheertayaan leeyla seegin ku soo dhawaada warkii oo fidsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu yeelan doonaa kulan degdeg ah gelinka dambe isniinta kadib markii uu Ruushku xoog kula wareegay 3 markab oo ay leeyihiin ciidanka badda Ukraine hay'adda adeega ammaanka federaalka Ruushka oo mas'uul ka ilaalinta xuduudaha ayaa sheegtay inay rasaas ku furtay oo la wareegtay maraakiibta Axaddi markii ay si sharci darro ah ku soo galeen biyaha Ruushka hay'addu waxay si raacisay inay hayso cadeymo muujinaya in Kiev diyaarisay inay qaado talaabada daandaansiga ah ayna la wadaagi doonto bulshada cadeymaha ay hayso saddex askari oo ku dhaawacmay dagaalkaas ayuu Ruushku sheegay inay hadda xaaladoodu tahay mid degan ayna u fidiyeen daaweyn caafimaad goor hore oo xaddi ah ayuu Ruushku xiray marin biyoodka Kerch oo ah marinka kaliya ee la isaga gudbo badda madow iyo badda Azov ciidanka badda Ukraine ayaa sheegay in ilaalada xeebaha Ruushku ay kaga jawaabeen joogitaankoodii aagaas maraakiib ay jiirsiiyeen doonyahoodii dagaalka Ruushku wuxuu ku gooyay marin biyoodka Kerch markab weyn oo kuwa xamuulka ah oo ay taageerayeen maraakiib dagaal diyaarado dagaal iyo kuwa qumaatiga u kaca walow ay isniintii Moscow sheegtay inay dib u furtay midowga Yurub ayaa ugu baaqay Moscow inay si degdeg ah u furto marinbiyoodka oo muhiim u ah Ukraine halka NATO ay sheegtay inay si dhow ula soconayso xaaladda labada dhinac ay ugu baaqeen inay istijiyaan madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko oo kulan degdeg ah la qaatay guddiga difaaca ayaa sheegay inuu dalka gelin doono xaalad degdeg ah oo u gudbinayo baarlamaanka si ay u ansixiyaan dadweyne careysan ayaa gubay gaari ay leedahay safaaradda Ruushka ee Kiev iyagoo dalbanaya in Ukraine u jarto xiriirka Ruushka labada dal oo hore uga wada tirsanaa midowgii Sovieti ayuu xiriirkoodu xumaaday markii Ruushku xoog uga wareegay Ukraine gacanka Crimea taas oo dunidu cambaareysay dagaal kasta oo ka dhaxqarxa labada dal waxa la aaminsan yahay inuu isu bedeli doono dagaalkii saddexaad ee dunida maadaama ay ku biiri doonto gaashaanbuurta NATO oo aan ku daawan karin Ruushka inuu dhulka la dhaco Ukraine oo awood ahaan aan u babacdhigi karin kadib 20 bilood oo wada hadal ah hogaamiyaasha 27 dal ee midowga Yurub ayaa isku raacay ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub heshiiska ayuu ku tilmaameen inuu yahay mid dhabada u xaaraya in London iyo Brussels u kala baxaan si nidaamsan Theresa May ayaa dhankeeda ku tilmaantay in heshiisku dhabada u xaarayo barwaaqo Ingiriisku galo kadib marka uu ka baxo midowgaas iyadoo ka hadlaysay Brussels waxay ugu baaqday dadka Ingiriiska oo ku kala qaybsamay aftidii ka bixitaanka midowga Yurub inaanay waqti dambe iskaga lumin doodaas si wada jir ah u qaataan heshiiska ka bixitaanka qorshaha ayaa ah 29 Maaj in Ingiriisku gabi ahaanba ka baxo midowgaas oo ay ku bahoobeen 28 dal oo reer Yurub ah madaxweynaha komishanka Yurub John Klujanka ayaa dhankiisa tilmaamay haddii baarlamaanka Ingiriisku heshiiska meel marin waayo inay keenayso niyad jab heshiiska oo ka kooban 599 bog ayaa 12 December la horgeyn doona baarlamaanka Ingiriiska meel marinta heshiiskaas weli lama hubo xisbiyada mucaaradka Ingiriiska ayaa sii sheegay inay diidi doonaan meel marinta heshiiskaas halka xisbiga talada haya ee Conservative-ku uu aad ugu kala qaybsan yahay qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira waxa kamid ah in Ingiriisku bixiyo 39 bilyan oo lagu sheegay biilkii furiinka sidoo kale waxa istaagi doona isu socodka dadka ee labada dhinac halka maxkamadaha Ingiriisku soo ceshan doonaan madax banaanidoodii waqooyiga Ireland iyo Gibraltar oo ka tirsan dalweynaha Ingiriiska oo xiriir dhaqaale la leh jamhuuriyadda Ireland iyo Spain ayaa laga heshiiyay haddii heshiiskan uu ansixiyo baarlamaanka Ingiriisku wuxuu dib ugu laaban doonaa midowga Yurub waxaana inay meel mariyaan 20 kamid ah 27 dal ee midowgaas markaa kadib waa in baarlamaanka midowga Yurub cod aqlabiyad leh ku ansixiyo
hay-adda ilaalinta furdooyinka iyo xuduudaha Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u xirtay dhammaan gaadiidkii iyo dadkii soo gudbayay San Isidro Port oo ah barta la soo gudbo Tijuana Mexico iyo San Diego California. hay-addu waxay qaatay go'aanka iyadoo boqolaal muhaajiriin isku dayeen inay ka talaabaan xuduudda si ay ugu cadaadiyaan dowladda Mareykanka inay u ogolaato inay u soo galaan kumanaan magangeliyo doona. ciidanka Mareykanka ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa muhaajiriin ay ku jiraan caruur yar yar oo isku dayay inay ka daataan darbiga xuduudda iyadoo koox yar ku guuleysatay inay ka gudubto xuduudda si looga gaashaanto suurtagalnimada in koox kale ay si sharci darro ah uga soo daataan xuduudda. waxaan go'aansanay inaan xirno marinkii labada dal ee soo gudbayay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda ilaalinta furdooyinka iyo xuduudaha. Mexico ayaa sheegtay inay musaafirin doonto 500 oo muhaajiriin ah oo isku dayay inay sohdinta uga daataan dhinaca Mareykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. muuqaalada la duubay ayaa laga dheehan karay boqolaal muhaajiriin ah oo ku ordayay xuduudda kala qaybsan labada dal si ay si sharci darro ah ugu gudbaan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa mar kale ku goodiyay inuusan aqbali doonin in muhaajiriinta ka soo qulqulaya koonfurta Ameerika ay si sharci darro ah ku soo galaan dalkiisa. kumanaan qaxooti ah oo ka soo qaxay saboolnimada iyo nolosha adag ee dalal dhowr oo ku yaala koonfurta Ameerika oo hayaan ah ayaa ku soo qulqulaya xuduudda Mexico iyo Mareykanka iyagoo ka rajo qaba inay si sharci darro ah ugu gudbaan Mareykanka si ay magangeliyo uga dalbadaan. madaxweynaha Chad Idris Deby ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. waa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne dalkaasi uu ku tago Israel. labada hogaamiye oo ku kulmay Qudus waxay ku tilmaameen booqashada mid taariikhi ah iyadoo ammaanku ahaa qodobka ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen. Netanyahu oo la hadlayay wariyaasha ayaa sheegay inaanu marna istaagin xiriirka Chad iyo Israel balse uu hadda gaaray heer aad u sareeya. wuxuu sheegay inuu doonayo inuu kala shaqeeyo Chad dhinac kasta oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada isagoo xusay inuu rajaynayo inuu booqdo dalkaas oo muslimiintu u badan yihiin. madaxweyne Idris Deby ayaa sheegay inay labada dal ka go'an tahay inay galaan iskaashi waayo cusub ayna si buuxda dib ugu dhidbi doonaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. balse Deby wuxuu carrabaabay inay xiriirka ay la yeelan doonaan Israel aanu waxba ka bedeli doonin halkii ay ka taagnaayeen qadiyadda Falastiin ayna aaminsan yihiin in la helo xal nabadeed. Chad ayaa ka mid ah dalalka dagaalka kula jira ururka xagjirka ee Boko Haram. booqashada tani waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay sidii loola dagaalami lahaa argagixisada. Israel ayaa la sheegay inay sanadkan hub siisay ciidanka Chad taas oo la aaminsan yahay inay suurtagelisay inay labada dal si buuxda gacanta isu qabsadaan. agaasimihii horeetay wasaaradda arrimaha dibadda Israel Dore Gold ayaa sheegay in hogaamiyihii horeetay ee Liibiya Muammar Gaddafi uu horay ugu cadaadiyay Chad inay xiriirka u jirto Israel una caqabad ku ah xiriirka labada dal balse caqabadaasi ay meesha ka baxday markii xukunka laga tuuray oo la dilay 2011. xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa si weyn u maalgashatay Afrika waxayna hadda olole ugu jirtaa sidii ay dal korjoogta uga noqon lahayd midowga Afrika. amiir sare oo ka tirsan boqortooyada Sacuudiga ayaa laalay warbixintii CIA ku sheegtay inay heshay in dhaxal suga Mohammed bin Salman amray dilka wariye Jamal Khashoggi. amiir Turki Al Faisal oo muddo dheer madax ka ahaa sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in hay'adda sirdoonka Mareykanku aysan ahayn mid la aamini karo. wuxuu tusaale u soo qaatay warbixintii ay CIA ku sheegtay in Ciraaq haysato hubka sida baahsan xukuumada taas oo beenowday markii Mareykanku duulaan ku qaaday Ciraaq oo dalkaas qabsaday 2003. weerarkii Mareykanku ku qaaday Ciraaq ayuu ku tilmaamay masiibo ay ku dhinteen kumanaan qof isagoo sheegay inay ahayd in CIA lagu maxkamadeeyo warbixintii beenta ahayd ee dagaalkaas horseeday. inkastoo CIA aaminsan tahay in dhaxal suga Mohammed bin Salman amray dilka Khashoggi haddana madaxweyne Trump ayaa caqabad ku noqday warbixinta CIA soo saartay. dhaxal suga Mohammed bin Salman oo safar ku maraya dalalku yaala bariga dhexe ayaa u duuli doona 30 November Argentine si uu uga qayb galo shirka dalalka G20 oo halkaas ka qabsoomaya. waxaa lagu wadaa inta shirkaas socdo inuu kulamo gaargaar la yeesho madaxweyne Trump, madaxweyne Erdogan iyo hogaamiyaal kale. waa markii ugu horeysay oo kafool uga soo horbaxo madaxda dunida ama meel fagaara oo dunidu joogto ka soo muuqdo lama garan karo qaabka iyo wajiga ay ku qaabili doonaan 20 hogaamiye ee dunida ugu awooda badan.
amiir turki alfaysal wuxuu sheegay haddii hogaamiyaasha shirkaas ku sugan ay si fiican ula kulmaan dhaxal sugaha iyo haddii kaleba inay la tahay inay aqoonsan doonaan in boqor salmaan iyo dhaxal suga maxamed ay yihiin kuwa xukuma sacuudiga ayna tahay in iyaga lala xaalo. wuxuu beeniyey inay jiraan dalaallo ay wadaan xubno ka tirsan qoyska reer aal sacuud oo doonaya inay dhaxal suganimada ka wareejiyaan maxamed bin salmaan, isagoo hoosta ka xariiqay in qoysku si buuxda u taageersan yahay boqorka iyo dhaxal sugaha. waa anigoo Shiina Culaya oo idin leh warkii maanta waa iga intaa tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabad diino.